Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal kusoo dhawaada channelkiina Moolima Channel. Maanta waxaynu qaadan doonaa sida loo sameeyo qoraal outline ah adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal. Maanta waxaynu bilaabeynaa taxano cusub oo aan ugu magac darnay farsamooyinka Photoshopka oo aan ku soo qaadan doono maalinba farsamooyinkaas oo hore kaaga qarsoonay. Marka waxay isku dayi doonaa in maalinba qayb kamida farsamooyinkaas aan idin la wadaagno. Waxaan ugu magac darnay taxanahan cusub farsamooyinka Photoshop. Waxaan rajeynayaa in toddobaadkii laba muuqaal oo kamid ah xalqadan aan soo gali doono inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan hadduu Ilaahay idmo. Maanta waxaynu qaadan doonaa qaabka aad ku sameyn lahayd outline text adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop. maanta waxaan sameynaynaa qoraalkan halka idinkaga muuqdo oo ah outline-ka. sida u jeedid qoraalkan waa editable ama mid wax laga bedeli karo. double click ayaan siinayaa. hadda qoraalka ayaa ka bedelay. sidoo kale waxaa bedeli kartaa font type-ka ama farta nooceeda. waxaa kaloo bedeli kartaa color-ka, everything wax walba oo qoraalka maanta habka aan ku tusi doono haddii aad u sameysid wax kasto ayaad ka bedeli kartaa oo waa editable. font type-ka haddii ahaan lahayd qoraalka qudhiisa iyo color-ka font fartaba. ugu horeyn waxaan soo furinaynaa new file, control n ayaan leenahay. full HD size-kiisa ayaa sameysanaynaa, enter ayaa dhehenaa. okay, marka igu soo furmo waxaa hadda sameynayaa background-kaas aniga waxaa u isticmaali doonaa gradient ayaa soo furinaya. hal color ayaan ka dooranayaa. adigana waxaad dooran kartaa colorkii aad rabto. marka aan soo furto background-kayga aad sameysto and then waxaa sameynaya marka xigta tida ayaa soo dooranaya ama textiga qoraalkii ayaa qoranaya. qoraalka aad rabtid ayaa adigana qoranaysaa. markii aan qoraalka qoro size-kiisa wuu weyn yahay sida u jeedid. waan yareynayaa size-ka. centerka ayaan ku aadinayaa ama dhaxda ayaa ku aadinayaa. and then markii aan qoraalka yareysto oo aan dhaxda ku aadiyo waxaan sameynayaa step-ka xiga ayaa wuxuu yahay qoraalka ayaan double click ku siinayaa. waxaa ii soo furmaya markaas pop up-kan oo ah layer style-ka markii uu ii soo furmo waxaan ka dooranayaa layer style-ka isagana stroke markaa ka doorto halkan waxaa uga jeedaa size-ka, position ayaa ujeedaa, blending mode, opacity iyo fill color oo ah colorkii. size-ka xagga waxaa ka dhiganaysaa size analysis ka rabtid. horta ugu horeyn waxaa bedelayaa colorka outline oo stroke-ga. position-kana waxaa ka dhiganayaa centerka ayaa qurxan. opacity blending mode-kana waxaa ku dhaafanayaa maxaa la dhahayaa normal. opacity-gana 100 ayaa ku dhaafaa. stroke-ga waa yareysan kartaa. hadda ani 10 ayuu u yahay, 7 ayaa ka dhiganayaa. intaas waa ka yareyn kartaa. markii aan halahaas sameeyo waxaan aadayaa bleeding option markii aan soo furo waa halkan la rabo inaad si fiican u fiirsatid. halkan waxaa ugu jeedaa fill opacity hadda waa 100 ayaan ka yareynayaa. down 0 ayaa geenayaa. sida halkan ugu jeedid muujida qoraalkeeni fill-ka uu ka baxay oo stroke kaliya ayaa soo haray. and then okay ayaa leedahay. wabacdeen waa ku diyaar dhan. intaas ayaan ku sameynay. qoraalka hadda waa editable. waxbaa ka bedeli kartaa. font type-kiisa waa bedeli kartaa. isaga qudhiisa waa bedeli kartaa. sidoo kale color-kan waa ka bedeli kartaa. waxaan rajeynayaa ugu yaraan inaa wax aad ka fahantay cashirkeena maanta. haddii aad tahay markii kugu horeysa aad channelka soo booqato fadlan subscribe garee, gambaleelkana furo si aysan kuu gafin cashar walbo oo aan soo gelino. inta aan ku wada doono xalqada xigta ee ah taxanaheena farsamooyinka Photoshopka waxaa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.